ugu horeysay oo ilaahay indhaheeda u furaayay ee araggeeda u soo celinayay waxay noqotay subxaan allah waxay noqotay maalin wiilka adeerkeed la rabay in loo guuriyo ay ku aragtay indhaheeda usoo furmeen iyo saaxiibadeed oo dadka ugu sokeeya ee sirteeda iyo dhibkeeda iyo dheefteedaba ku qarsanaysay oo gacanta is haysto ayagoo gacanta is haystaan ayaa araggeeda ilaahay u soo celiyay markay aragtay waxay aragtay ileen codadkiiya taqaanaa markay aragtay saaxiibadeed iyo maxay ahayd wiilka adeerkeed oo gacmaha is haysto dadkan waxay isleeyihiin idinma jeedo ayadana ma aysan dhihin markay aragtay waa idin jeedaa way hadleen waxay dhaheen saara maxaa kusoo bixiyay idin markay tiri asagana gadaal ayuu gacmaha ka taagtaagaan علشان ما يجي عامس عمل عامس يجي عمل فهمت كذا شيء ذوك بريكتي وابحي قوان حيكو قارتي سارة إنسان دهين عرقيق إلهي ويسوع عليه إلا سفتو هذا لن إيكا كشفتو سارة قصة هذا محيكو بلاوتي محيسكو دماتي نكحشة أو ذلك سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت قصو حيني وضع قبر أرقل إيد haddana subxaan allah marka ugu dambeysay ee qayaanada ku socotay oo ilaahay araggeeda u soo celiyay waxaa maqli jiray sir maqabe sabab iyo cisho yani qofka markuu ahlu saliim iska yahayo ilaahay iska yaqaano iska hor socdo waxa waay rabbigay usoo aqbaarayo rabbigay indhahan biniaadanka asaasiyi lixda lixaad qofka asaa tamaam ugu dhigo doorab naaqis ka dhigo doorab wada siiyo marka rabbigay asaa qafuur raxiim ah laakiin bini'aadanka kuma tashtaan qofka markuu naafa yahay mise ilaa la ahaado mise indhaha la ahaado mise dhagool ha ahaado mise gacmaha la ahaado mise lugaha qiyaam ha ka ahaado waxay jecel yihiin bini'aadanka kaleete inaysan waxba u sameynno yacni ku tiigsadaan ay dhibaateeyaan si walba wax walba ay ku sameeyaan maadaama qofkan ilaahay u dhammaystirin subxaan allah ilaahay uma wayn curyaankabo allah waxaa waaye cagahiisa uma wayna lilmusant الحمد لله marka qisada waxay ku bilaawatay ayna ku dhamaatay Saara qisadeeda waxay tahay sideeda waxay ku dhalatay Saara ayadoo aragala hooyada aabaheed markuu ilaahay siinay Saara waxay lahayd qof aragala muddo way isqabeeno hooyadan aabahan ilaahay wax ma siin laakiin aabaheed ayuu wuxuu ahay aaba qani ah hooyadeedna waxay ahayd hooyo umulusa ah yani dadka ilmaha ka dhaliya markuu ilaahay siiyay gabadhoodii Saara in loo sheegay inay maanta in la adahay dhakhtarku u sheegay ilaahay ku xamdiyo ku shukriyen alxamdulillah ilaahay wuxuu na siiyay macawaa Saara indhaha adoo ilaahay indha la'aan dhigay laakiin aqligeeda iyo maskaxdeeda kaamil ugu dhigay wixii ku soo socda xataa way ogtaa way dareentaa ma fahantay Saara iyadoo saas ayay wax baranaysay waa lagu tacaalay wax nuucisay Saara naag weyn markay noqoto 20 jir noqotay ay jaamacadii inta aaday soo dhamaysay maalintii jaamacada farxadeeda ahayd hooyadeed farxad ka badatay dartiis ayaa shil baawur ay ku gashay soo socodka gabadheeda u soo carreys shil baawur ku gashay markii aabaheed loo sheegay leeyahay xaaskaaga shil baawureed gashay weyna dhimatay asagana naxtinto ka qaaday wadnaha istaagay meeshaas uusan ku geeriyooday Saara hooyada aabaheed meeshaas ku weyd laakiin ilaahay amarkiis waxay ugu tageen xoolo oo fooqal macquul ahayn yani aad ugu fikireen bangiga inta lacag ku taalo gurgeedii ka sarka camal xoolaheed wax walbo adiga ugu fikireen gabadhoodeen ku wada qorteen sidii biri aragay la aday qof u baahan laakiin waxaa nool adeerkeed oo lagu wiilay adeerkeed markuu ogaaday walaalkiis inuu asaga dhintay ee gabadhii uu qabanay ee dhimatay go'aan wuxuu ku gaaray Saara inuu asaga la xil wareego hal xil wareega muxume Saara waa qof weyn oo maanta uma baahna mas'uuliyad ilmanimo laakiin waxay u baahan tahay wehel waxay u baahan tahay garab istaag maadaama shirkadihii iyo lacagihii iyo wixii dhan adeerkii uu ogyahay laakiin asagu ma qorna oo gabadhana ku qoran waxaysan Israel ka ahayn ma sameey karo go'aan wuxuu ku gaaray ka wiilkiisa weyn inuu siisto wiilkii weynaa ku qalqaalay wiilkii weynaa wuxuu isku dayay gabadhii inuu shukaansado adeerkii u yimid wuxuu yiri gabadheedii ka warnigeyga waa wiil fiican waa ujeedaa waad
haddaadan arkin xataa waa maqlaysaa waa dareemaysaa adiga wiilkeygii aan kula jeclaystay inaan kugu daro kula ogaado wax walba kula daadiyo waxay dhahdaa adeerkeed kama diidnay waxay tiri waaya marka mudday soo qaadanay intay yacni qofka intay sheekeysanayaan intay isdaba soconayaan kadib arooska la diyaarinaa wada socodkoodii gabadhii saaxiibadeed ahayd ee aragga ilaahay siiyey ee jaamacadda isla soo dhameeyeen ayadana waxay bilowday in wiilkii adeerka dhalay inay dhinaceedii ka shukaansato oo la shukaansanayaa saara markay guriga imaanayo wiilkan adeerkeed oo soo salaamayo oo ag fadhiisanayo la sheekeysanayo waa joogtaa abaahiileedi kale banaanka laskula heshiinaa hooshooda la wadanaa marmar wuxuu leeyahay kuma imaan karo shaqaan leeyahay waa ku imaana mar dambe howshiisii soo wataa subxaan allah maalin maalmaha ka mid ah saara ayadoo isbitaalka kasoo baxday guriga usoo socoto ayay waxay tiri meel halkaan ah igu leexii kafeteriya inaan kafee ka cabaan rabaa dareefalkii wuu ku leexiyey way soo degatay usheeda dheereeda soo qaadatay meeshii kafeega iska fadhiisatay ayadoo kafeegeeda iska cadeysa meesha iska fadhiso ayay waxay dareentay kor wejigeeda inuu nuur marmaraayo markaasay tiri subxaan allah iyadoo yaaban isleed aftiina kusoo galaa aftiinkaan ujeedi jirnay say wax u jiraan ayay hal mar indhaheedii araggeeda waxaa u soo celiyey laba qafood oo dumar iyo rag ah oo gacanta is haysto ayay aragtay indhaheedii markay aragtay lugahay ka bilowday madaxay ku geysay way aragtay wayna aamusan tahay markaasuu soo booday gabadhii saaxiibadeed waxay tiri saara fiican tahay maanta kaligaa kafeteriga fadhida maxaa ku keenay maxaa ka sameynaysay inay saaxiibadeed tahay codkeeda taqaanaa horey ka fahantay asagii ayaa gadaal wuxuu ku leeyahay ha u sheegin yani gadaasha ku wareegto inaan kula socdo ha u sheegin saara waxay go-aan ku gaartay marka sirtaan qarsan inay ogaato aysan u sheegin inuu ilaahay araggeeda usoo celiyo iska aamusta isalaameen meeshay soo dhisteen waxay raacaysaa ay tirahay tiri guriga isku soo raaceen gurigeeda iska joogtay guriga marka uu yimaado meel qol halkaan lasla galaa waa la sheekeystaa yacni qoftaan in wax u jeedana loo maleeya iyadoo meesha fadhido ayaa korkeeda laga shaxaa wixii doonta laga sameynaa xataa adeerka waraaqo keenay wuxuu yidhi waraaqaanka saxiix waraaqihii markuu keenay wuxuu yidhi gabadheedii waraaqahan liska rabaa waxaa layidhi in maxay ahatoole gabadhaan waxaysan saxiixin ma qaadi kartee waraaqihii ugu horreeyin waa kuwaan 15 warqadood wadaa waxay tiri adeer aniga warqadaha aad ii keentay tiri ma saxiixayi abukaadan leeyahay abukaadkayga ha ii yimaado abukaadka ayaan kala bixina abukaad kalaa loo keenay marka iyada abukaadka aabaheed uu lahay codkiisay taqaanaa haddii wejigiisa hataa arkin codkiisay taqaanaa abukaadka loo keenay markuu hadlay waxay tiri abukaadka aabahey ma ahani tiri abukaadka aabaha ma ahani tiri abukaadka aabahey waa la baxay isagii ninkii abukaadka ahaa looba ay waxaa lacagaa lagu siinaa gabadhaan hor fadhiisto markuu hor fadhiistay wuxuu yiri aniga waaye gabadheedii abukaadka aabaha adeerkan wuxuu yiri lacagaa lagu siinayaa aniga lacag uma baahno yiri aabaha waxaan u ahay daacad weligeen waxaan aan doonaa daacad haddii iska kee bedel haddaad in hayso waxay tiri dhageysay tiri adeer aniga aabay abukaadkiisa tahay adeerkay waxay tiri adeerkay waxay tiri dadka isoo xiga maanta wuxuu aniga rabaa tiri in iska kee dhaafiyo iga taqaluso hadduu idiri kar xataa waa idiri lahay calaa xoolaha aabahey uu ka tegay iiga tegay isxaan iima sameyn waxay tiri aniga korkeyga lagu shixi jiray ma ogaa jirin wax walba ma ogaa jirin ilaahay argeyga hal maroo ilaahay ii soo celiyey indhaana leeh ma fahanteen adeerkay waxay tiri kheyr allaha ku sii jiri danahaaga raaco dhaqaalo waa leedahay dhaqaalaha kugu filnaadaan hortaada hor ahay qof indhalaha ilaahay iga dhig indhahayga ii soo noqdeen waa kuu jeedaa waa ii jeedaa dharkaa wadataa noociisa saas wiilkaaga waa noocaas nafsaas gabadha saaxiibada iyadana dharkay wadato waa noocaas abukaadkii hor fadhiin waa noocaas marka waxay tiri wax midiin sheegaa haligo kala tago danihiisa nin walba dana waa yaqleeya danahooda wada raaco ana qof weynaan ahay ilma mihi aabay alxamdulilah iyo hooyaday anigoo weyn oo ilaahay kasayba maanta ayuu anoo yar hadday dhiman lahaayeen waa baabi'i lahayo naf iyagu ma jiri lahayn laakiin ilaahay muxuu ii kasay nasiibaan leeyahay hadday waqtigooda dhamaaday xataa anoo weyna i koriyeen oo jaamacad soo dhameeya ayaa aabay hooyaday ilaahay oofsaday marka waxaa idin dhihi lahay tiri ehel ma jiree yaa nin walba dantiisa iyo daneystaa jirtee halagu kala yaaco danihiina raacday tiri anigu danahayga raacana indhaha la wada taagay goorma arag ku soo noqday goorma wax arkaysa intaas wax ma ujeedi anaga ma is alay waxay tiri alay taxal waxay tiri waqtiga ii soo noqday ilaahay baa ii soo celiyey gabadhii saaxiibada intuu jeestay tiri dhegeyso
saaxiibaday ahayd walaashay ahayd walaal ilama dhalan walaalan kaa dhigtay saaxiibadan kaa dhigtay naftiidan kaa dhigtay maanta waxay tiri ninkii aniga maanta aroosi lahay ayaad hadduu ku shukaansado xataa asaa i shukaansado hadduu ku shukaansado xataa adna waa la wadaa dadhire maanta ma qayaamay gabadhan miskiinta aragala iguma naxariisan aragi la-aanteydii wiilkii adeerka dhalana waxay tiri dhegeysta tiri awalba ima aadan rabini tiri ee waxaad igu soo aadi tiri xoolaha ilaahay isiiye aabahana ima rabini tiri isagana wuxuu igu soo aadi tiri xoolaha ilaahay aabahay siiye aabahaas waxaan ku sheegaya tiri xoolo kuma yara oo dhululu qabaa oo shirkadoo qabaa oo aabay intuu haysto haystaa iimaan darro haysa leh adeerkay oo dhibkan u yeelay kowdhe laakiin waxaan idin sheegaya tiri nin walbo danihiisa raaci ani qofaan u baahanaa ilaahay ahayn maba jirtee danihiina raacday tiri ninka aan guursanayna waxaan ku guursanaya isifaan ku raacay anaa aqaan shaqo iyo shuqul cid igu leh ma jirtaa la danaystay tiri ha lagu kala yaacaha ayagoo yaaban adeerka wuxuu yiri maya gabadheeda qalad iyo aragtay anigu adeerkaaga nahay anigu dhiigaaga dhacaankaaga nahay aniga saana nahay alaa taala waxay tiri adeerkaaga tahay madax korkiisa ay saaran tahay haddaa dhibaatan tahay dhibkaagii way dhibaaya wax garab qabanaya laakiin hadda ma dhibaatoonin intaan qabaa haysataa wax la-aan kuma hayso dhaqaalaha intaan haysataa wax basri ka ahayd adeera waxay tiri wiilkaagana gacanta ka qabso albaabkaasna ay dhaafa ilaahay khayr ha in siiyo hortiin hor u ahaay gabadhan waxay tiri abaaya أول بحيت يعني إسلامتي إسوق كورسي تري جورجا ناني كهذا تري يعني مربيضة كهذا تري قف قاس لي الله تقام أو بقول كل إشي تري قبل يدي هي بالساس وهي بلاساس وهي كل معي قبل عن صاحب دائه صاحب لله معه وصاحب مغري سكتاف مكيده تري حد هي تري حاسس ولا قبل عن يرانتي إلى الآن صاحبنا لكن بنتد ما نتري qofka kaliya iga naxayn eeda ay heeday qofka kaliya i garab taagnaan eeda ay heeday ma fahanti qofka kaliya intaan ka dhimanaa mise ay ka dhimanaysa is garab taagnaan eeday noqon doontaa ma fahanti ilmana ma qabtay tiri ana ila nooshahay ana ay haysataa shaqaalna igama aha waa waalidkii ida ay korsatay ma fahanti hooyaday shaqaale iska ahayd weligeeda bixi jirto danaheeda iska raaci jirto isbitaalkeeda aadays inkastoo waxay tiri ay guriga haday timaado iga ag tagayna tiri laakiin ay tiri maanta qofka igu dhow oo hooyo ahaan hooyaday labaad noqoto qofkaani ahayd marka waxay tiri cid aan u baahanahay ma jirtay tiri iska taga marka waxa waaye dadka masaakiinta ah ee liita masa arag ha la aadaan masa dhagool ha ahaadaan masa curyaan ha ahaadaan in yani lagu tiigsado ilaahay raali kama aha in yani faraha lagu fiiqfiiqan ilaahay raali kama aha in intu ilaahay u yeelane lagu caayo mase lagu faquuqane ilaahay raali kama aha qalad waay xaraam waay ilaahay raali kama aha marka dadka baahida gaarka qabaan ana waxaan dhihi lahaay halaga leexdo rabbigay qofka wax uma weyn yani waxaan uma diidane laakiin rabbigay wuxuu ku tusinayaa dadkeenan ilaahay dhexdiisa dhexaad joosta ka dhigay dadkeenan caafimaadka ilaahay siiyey annaga inaan ku camal falano oo rabbigay noo tusinaa ee yaal rabaya inaan ku camal fasho annagaa rabaa inaan ku camal falano haddaa ku camal falo weynka waran dhibkeed ma laho dhibkeeda leedahay qisadan maanta intaas ku egtaa insha allah qisadan qiso la mid ah waxaan idin leeyahay khayr badan idin dhaafaa waxaan idin leeyahay share noo dhaha like noo dhaha subscribe noo dhaha gambaleelka furta qiso walba si ku soo gaarto insha allah waxaan idinkaga tegayaa caafimaad cimri dheer bash barwaaqo nabaday asalaamu calaykum